nolosha lagama quusto gabadha halka ay kaga muuqato waxa lagu magacaabaa Anuush waxa ay kamid tahay gabdhaha TikTok caanka ka waxa ay in muddo iyada oo ilmeynaysa raadinaysay hooyadii dhashay iyada oo 2008 ugu wardambeeday iyada oo doon ka raacaysa Liibiya Talyaanigana ku sii wajahneed nolol iyo geeri waa lagu waayay haddaba maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa la soo badbaadiyay lana soo furdaamiyay dad badan oo Soomaaliyeed oo magaf u xirnaa muddo 15 sano 20 sano ku dhawaad kuwaas oo qoysaskoodii ay kaga sabreen nolol iyo geerina mid ay ku tiri waayeen gabadhii saaka raja ayaa soo gashay oo hooyadeed inay dadkaasi qayb ka tahay ay aad ugu rajo weyn tahay oo saakay mar kale ay media ka dalbanaysa dadka Soomaaliyeed in hooyadeed la baadi goobo maanta waxa ay ugu jira hami waxaan arkay dadkood helay waxaan arkay dad is helay anigana amaanta rajeynayay in hooyadeed helo haddaba saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan gabadhaas masaakiinta u sheer gareysaan si hooyadeed haddii ay nooshahay u hesho Liibiya ayaa waxa laga soo badbaadiyay dad badan oo Soomaaliyeed sida halka ay kaga muuqatana wiilashaas iyo waliba gabdhahaas aad u faraxsan muddo maybe 15 sano ka badan ayaa waxa u xirnaayeen magafe dadkooduna waxa ay ku tiri waayeen inay geeriyoodeen iyo waliba inay nool yihiin gabadhan waxa lagu magacaabaa Anuush hooyadeed waxa lagu magacaabaa Ayna Qadra Maxamed waxa ay 2008 ka tagtay ciideeda ilmahan oo aad u yar yar haddaba waa ay tahriibtay markii cid ugu wardambeedana waxa ay la soo hadashay hooyada dhashay ayada oo ilmahan ay u ah oo haatan nool waxayna u sheegtay inay doonti raacayso Talyaaniga u socotay taas oo ay u sii diyaariyaan $900 lacag ah oo ay ku sii bixi doonto Talyaaniga si aan fara looga qaadin balse markaas ayaa hadal ugu dambeeyay ciideeda nolol iyo geerina midna waa ay ku tiri waayeen oo xitaa xilligaas doomihii baxay waxa ay ka raadinayeen inay qarqameen oo halka ay ku geeriyootay balse hooyadii dhashay iyada oo ayeeyday u ah ilmahan waxa ay sheegtay in waqtigii gabadhaas ku aadinayd ay baxday inaan la soo sheegin wax doona oo baabaaday taasna cid rajo weyn gelisay in gabadhii aysan dhimanin haddii Talyaaniga ay tagi lahayd maybe way soo hadli lahayd oo meel safe ay tagi lahayd balse badii miya ku dhimatay Liibiyaankii miya wali gacanta ku haystaan waa ay kala saari waayeen haddaba gabadha Anuusha waxa ay social media u soo gashaba inay sida ay sheegtay inay hooyadeed ka baadi goobta media si dad Soomaaliyeed ugu caawiyaan inay hooyadeed dib u hesho ma aysan quusanin muuqaalka ay soo gelisay barteedana ay rajada ku muujinaysay in ka badan 40,000 oo qofood ayaa u sii share gareysay kuwaas oo garab taagan rajeynayana in loo soo helo gabadhii haddaba maadaama dad badan la soo helay qaar kaamirada ay soo qabatay waxa laga yaabaa oo loo badinayaa in iyadii dadkaas ay kamid tahay balse kaamiradu ay soo qabanin haddaba si ay u gaarto Liibiya iyo waliba Soomaalida halka joogto sawirka hooyadan halka in kaga muuqdo please waxa in ka codsanayaa saaxiibayaal inaad ku caawisaan gabadha masaakiinta inay hooyadeed dib u hesho hooyo la'aan xanuunka ay leedahay qofkii aan haysan ayaa dareemi kara gabadha maanta rajay leedahay qof walbana Ilaahay raxmadiisa lagama quusto haddii ay nooshahay waxa rajeynayaa in gabadhaas hooyadeed u soo gacan gasho adiguna qayb ka qaato oo muuqaalkan u sii share gareeya saaxiibayaal